السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي. maanta waxaa noo wadaa qiso cibro qaadasho leh. qisadaasoo aad iyo aad aan u rabo inaan ku cibro qaadano insha allah. laakiin qisada ma ahan qiso xadiid laga soo wariyey oo xadiid laga soo qaatay ama quraan ku salaysan. quraanka kariimka midna ma aha. marka haddaan u gudagalno qisadeennii waxay ka sheekeynaysaa nin waxaa jiri jiraa la yiri boqore. boqorkaasoo aad iyo aad xoolo u lahaa. boqornimada ilaahay unbay u sugnaatay. marka ninka asaga ah oo boqornimada sheeganaya wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u yeeray wasiiradiisi iyo waardiyaashiisi iyo dadkii asaga hoos imaanaya oo idil ummadii wuxuu u sheegay uu yiri waxaan rabaa inaa la ii dhiso guri aan noociisa weli aan la arkin. guri cusub oon ku guura oo laakiin aad iyo aad u raaxo badan oon ku raaxaystaan rabaa inaa la ii dhiso. gurigii ayaa la bilaabay dhismihiisi waa socday. gurigii waa la waday gurigii dhismihii waa la bogay. maalintii la bogay gurigii dhismihiisi oo la qalabeeyey wuxuu yiri waa ku guuraa. wasiirkii boqorkii iyo faamilkiisi gurigii ayay u kaceen oy u guureen. gurigii markay u guureen wuxuu haddana dalbaday cunto aad u macaan oo nooceeda weli la arkin. gurigii quruxda badnaa wuxuu yiri inaa alaab la ii dhigo oon ku guuro maanta rabaa. alaabtii la dhigay waa ku soo guuray sidii uu rabaa loogu hagaajiyey. markaasaa haddana wuxuu dhahay waxaan u baahanahay inaa cunto nooceeda aan weli la arkin la ii kariyo. dalabaad kaluu sameeyo cuntadii. haddana waxa uu yiri ha loo yeero nimanka adduunka ugu cunto karinta macaan ha liigu yeero. maanta waxaan rabaa dalabaadkaas inay ii sameeyaan. nimankii waa loo yeeray cuntada karin jiray oo cuntadooda ay aad u macaaneed oo la aqaanay oo caanka ahaa waa loo yeeray. jikadii ay galeen cunto karintii ay biloobeen. wax allah wuxuu doono uu dalbaday waana loo qalqaaliyey karinteedii. cuntooyinkii inta lagu maqnaa oo la qalqaalinayay ayaa asagii iyo carruurtiisi iyo xaaskiisii ay gurigii ay wada galeen. markaasaa boqorkii sariirtiisii oo aad u qurux badan intuu saas u koray lugihii fidsaday ayuu saas madaxa derbiga ugu tiirsaday barkintiisa qaatay uu isku fidiyey. markaas xaaskiisana dhinaca lugaha u fariisiyey. ilmihiisana dhinacyaha iska mariyey labada dhinac midig iyo bidax oo wuxuu dhahay maasha allah niyadiisa ula sheekaystay. wuxuu dhahay naftaydaneey maxaan wax badan noloshaan quruxda badan aan ku hamiyey oon ku riyooday maanta bal waa taasi ku naso. naftaydaay noloshaan quruxda badan oon weligay aan ku riyoonay oon ku riyaaqay naftaydaay bal ku nasa. islaantiisana meesha lugahaasaas uu u fariisiyey. boqoradii lugahay fariisatay oo dhinaca waxay ka martay dambe. carruurtiisana qaarna wuxuu iska mariyey dhinaca midigta qaarna dhinaca bidaxday ka fadhiyeen. markaasuu naftiisa inuu la sheekaysto u galay boqorkii. isla maalinta iyada ah marka uu gurigiisa kusoo guurayay wuxuu amar ku bixiyey uu amar ku siiyey horta wuxuu kordhiyey waa idinka kala hilmaamay waardiyaha ilbaabka taagnaan jiray iyuu laba laabay. maalintaas uu 3 laabay. wuxuu dhahay cid ii soo geli karto oo hoos iigu soo dhaafi karta maanta ma laha. maanta waxaan rabaa inaan gurigayga ku raaxaysto aniga ilmahayga islaantayda cuntada adduunka ugu macaana naloo kariyo aan cunno. waardiyaha haddaad tihiin ilbaabkaas cidnay ka soo gelin. waa maqlaysaan.
amar uu ku bixiyey inaa cidna u soo gelin ilmihiisi iyo islaantiisi iyo asaga guriga cuntadiina way sugahayaan waardiyaashin wuxuu ku dhahay maanta cid aan shir la galaayo ma leh cid aan u soo baxaaya ma leh cid aan la sheekaysanaya ma leh maanta waa aniga iyo gurigayga cusub iyo naftayda iyo ilmahayga iyo raaxadayda bes nacamaa la yiri nimankii cuntada karinayay jikadiiyay qabsadeen cuntadii waa loogu maqan yahay boqorka saas isku sii daayay sariirta ku dangiigsaday maxaa raaxa ilmihiisii islaantiisii asaga magaceed kala u soo gelaysa ma laha maasha allah maxaa raaxa laakiin raaxada adduunyada raaxa maaha ninkii aaqaraa hormarsaday oo ilaahay intuu faray sameeyey oo diin islaan haysto unbaa raaxa helaya isla markii waardiyaashii oo ordaya u imaada waxay dhaheen boqorow ninaan ka yaabnay oon ka cabsanay muuqaalkiisa ayaa irida noogu imaaday ninkiina wuxuu naga codsanhayaa uuna amrihayaa ina uu ku arkuu rabaa boqorow ninkaas wuxuuna dhahe boqorkaan rabaa inaan la kulmo boqorka wuxuu ku jawaabay idinka aniga soo idinma dhihin cidna lama kulmi kari maanta cidna ma raba inaan arka soo idinma dhihin ku laabta ninka asaga waxaa tirahan boqorka maanta qof u soo geli kara uu arki kara maleh kaca ku dhaha way laabteen ninkii ilbaabka taaganay u tageen oo indhihiisi iyo muuqaalkiisi aad ay uga cabsadeen ay u tageen oo u sheegeen waxay dhaheen niyow annaga waa u tagnay boqorkii wuxuuna dhahay cid uu maanta la kulmi rabo ma lahan nasaas ahaa bas way u tageen way u sheegeen asna wuxuu dhahay aniga hal daqiiqad unbaa iga harsan waqtigaan la kulmi lahaa boqorka unu sheega way soo ordeen boqorkii u imaadeen waxay yiraahdeen ninka wuxuu leeyahay hal daqiiqad bisaan rabnaa inaan ku aragno inaan kula kulmo hal daqiiqa bisaan rabaa warkaca u tagay ninka waxaa tirahaan kurka ka gooya ninkaas dib danbaa iigu soo noqonin ani waana amar socda way tageen ninkii u tageen waxay dhaheen yow ninka annaga wuxuuna soo dhahay inaan kurka kaa goyno ku dilno ayuu amar nagu soo siiyee meeshan ka dhaqaaqaysaa mise waa ku dilaynaa markaasuu dhe waryaada maqla aniga waxaanahay malkumoodkii nafta ka qaadi lahaa ninkaas saacaddiisana way soo dhammaatay waa u galaa ma nimankiiaan kala cararin seefafkii nin walbo seefta u haystay gacanta dhulka dhud nin walba waa la kala orda meeshii nimankii seeftoodii ka kala carareen waa kala fakadeen iyo dalaq ninkii waaba loo soo galo ninkii argagaxsa aad moodayso oo indhihiisi wejigiisa laga cabsanayo dalaq usoo gala gurigi markaasuu dhe waryaa anigaa ku rabay oo bannaanka taagnaa anigana waxaan ahay ninkaas iyo hadda iyo saacaddaana nafta kaa qaadaa allah hal saac bes isii aan deemahayga iska kala gudiyo allah cuntadii liigu maqnaana taa ma cunin allah haddaa xilkii aan hayay hataa seen ku kala wareejiya waryaa waxaas dhan ma jiraana lagu yiri ninkii niihow hal daqiiqa ayaad haysataa halka daqiiqa gudaheeda wax walba ku dhammaanayin ogow intuu calaacalay daqiiqadina way dhammaatay naftina waaba tagtay ilaahow adaa raxmaan marka qisadan waxa aan ka baranaynaa waxaa adduunyadan waxaa dhici karta qofka ibni aadanka maalinta uu isdhaha maanta maalinta adduunka kuugu raaxo badneed ilaahayna ma tuso taas waa dhici kartaa nin walba boqor ma jiro xoolo ma jiraan awood ma jirto oon awoodda ilaahay ahayn boqornimo oon boqornimada ilaahay ahayn ma jirto naf haddii la daynay adduunka nafteen nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed aa la dayn lahaa marka waxaa la yidhaahdaa laa tuqadim walaa tuaakhir waqtigana laguma daro mana laga soo hormaray saacaddeeda nafta ninkaas qisadiisa ayaa intaas ku ekeed annagana maanta intaasay nooga eg tahay marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iqwaani bahalkan saara laygta sheerna dhaha kommentiyaal qurux badanna kasoo bixiya ilaa waqti dambe calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu